49 muwaadin oo reer Somaliland kuwaas oo muddo ku xidhnaa wadanka Djibouti kadib markii xukuumadda wadankaasi ay xidhay dulimaadyada cudurka coronavirus awgeed ayaa maanta ay u suurta gashay in diyaarad lagaga soo qaado Djibouti laguna keeno Hargeysa. arrintan ayaa waxa gacan ka geystay wakiilka Somaliland ee wadankaasi Djibouti Ambassador Cabdifataax Saciid Axmed. Somaliland labo week ay xukuumadda hudheelada dejinaysaa marka hudheelada karantiin bad ku galaysan Afrika wan cisho dawaano runtii caalamka maanta ka taagan xagga la badbaadiyo bulshada Djibouti idinka maanta waa ka adduunka waxa ka socda marka taasina ku wacyigelinaya labada week insha Allah hadii la helaa halka karantiinkaas ku galaysan taasana insha Allah ogaanaysa sid bulshada u badbaado idinkuna u badbaadaan cid walba u badbaado annaguna u badbaadno hadii la helaa ilaahay wax badbaadiye marka intaasan doonayna wacyigelinta inaan idin sheego hadii la helaa intiina badan kulay waa idin sheegnay weligeed safaaradda loogu yimid intaan la socon waxaan jecelahay inaan la socodsiyo arrinkaas isaga runtii muhiim ah wadna macadsantiin qaar ka mid ah dadka muddadaasi ku xidhnaa wadanka Djibouti ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda. Djibouti March baan imi almost 50 casho ku dhawaad baan joogaa ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin ilaa hadda mar rumaysnay inaan dalka iyo hooyo ku noqonayo aan marka alxamdulillah rabbil alamin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dawladda Somaliland safaaradda Somaliland ee Djibouti joogtay dawladda Djibouti magacaygu waa Nimco Cabdigool ku sugnaa muddo bil iyo 24 cisho ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad oo dhan iskale maanta soo tagno dalkeena hooyo waxa ka soo shaqeeyay ruuxaantii inaan baxno safaaradda Somaliland iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo intii aan horreyn u mahad celinayo safiirka Somaliland ee dalka Djibouti oo intii aad iyo aad u shaqeeyay dadkan oo halkan ku cadnaa muddo la dareen noqday duruufo kala duwan iyo qaarkood ay ku jiraan maxaan idhaahdaa hoteelo oo ruuxaantii hiil iyo hooba la garab istaagay muwaadiniinta reer Somaliland waxa sidoo kale u mahad celinayaa dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo runtii isaguna suura geliyay maanta inaanu ka baxno Djibouti oo iyadu lockdown ku jirta ama xaalad degdeg ku jirta. dadkaasi ayaa markii ay soo gaadheen gegida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxa la wareegtay xukuumadda Somaliland iyadoo la geliyay muddo 14 maalmood oo karantiin ah si loo hubiyo in ay qabaan cudurka COVID-19 iyo in kale. diyaaradda sidii rakaabkan ayaa markii dambeeyana Hargeysa waxay ka qaaday muwaadiniin reer Djibouti oo iyaguna ku xidhnaa Hargeysa. shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab.